بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، waxaynu ku dhaajinay masaa'ilkii ku saabsanaa fiqhu sawm, gaar ahaan waxyaalaha sunnaha ee qofka muslimka looga baahan yahay ee aadaabiyaadka saa'imka mustaxabka ka mid a ayaynu ku dhex jirnay. waxaa ka mid a marka aadaabiyaadka qofka saa'imka looga baahan yahay salaada taraawiixda iyo qiyaamka la samaynayo fii layaali ramadaan la samaynayo, oo waa shacairta waaweyn ee dadka muslimiintii ay leeyihiin weeyaan. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaada taraawiixda dadka muslimiinta wuu u sunneeyey, biqowlihi ayuu ku sunneeyey, wa ficlihiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sunneeyey. dadkana wuu jeclaysiiyey. rasuulku calayhi salaatu wasalaam biqowlihi buu ku sunneeyo oo rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. qofkii kaca ramadaan dhexdeeda iimaanan waxtisaabanna ku kaca oo salaatuleylka iyo taraawiixda la yimaada, gufira lahu maa taqadama min denbi, dembigiisii hore waa la dhaafaya. fii saxiix albukhaari ayuu ku soo arooray. rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka jeclaysiiyey inay qiyaamkaas ramadaanta dhexdeeda dhacaya ay sameeyaan, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ohan jiray, man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mar kale, shahru ramadaan kataba allahu calaykum siyaama wasanantu lakum qiyaama faman saamahu waqaamahu iimaanan waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu ummu. marka waxaa la rabaa, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam habeenada qaarkood ayuu tukaday, markii dambena uu ka joogsaday. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu uga joogsadayoo wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, khashyata an yufrada calaykum. waxaan uga haray waxaa weeyaan, waxaan ka baqay in laydinku waajibiyo hadhow a awoodi weydaan ayaan ka baqay. qofka muslimka ee maalintii markaa soo sooman waxaa la rabaa inuu salaada taraawiixda uu ku dadaalo, cinaayana uu siiyo, isagoo khayrkaas iyo wanaagga ku jira ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ka faa'iidaysanaya. waxaa ku jirana waxaa weeyaan in loo dhaafaayo qofka dunuubtiisii oo dhan loo dhaafaayo, oo ka yowmi waladatu ummu oo noqonayo, waa faa'iidada ku jirta weeyaan, iyo ajarka kale uu ka helayo. qofka markaa salaada taraawiixda tukanayana waxaa loo sunneeyey inuu la tukado maca alimaam, inuu la tukado. imaamka markuu la tukanayana waxaa laga rabaa inaanu ka tegin masaajidka oo aanu ka bixin xataa yansarifaha alimaam, ilaa imaamku markaa uu salaadaa ka dhammaysto. maxaa yeelay qofkii imaamka la tukada taraawiixda ee la bilaaba ee la dhammaysta wuxuu la mid noqonayaa qof salaatuleyl tukanayay habeenkii oo dhan ayuu la mid noqonaya. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla. qofkii imaamka salaada taraawiixda la tukada ee intuu ka soo dhammaanaya uu la tukada, waxaa loo qorayaa qiyaamu leylatin ayaa loo qorayaa, sida ku soo aroortay fii sunani atirmidi raxmatullaahi calayh. sunnuhu waxaa weeyaan in uu ku gaabsado qofka taraawiixda tukanaya inuu ku gaabsado 11 ragcadood. 11 ragcadoodna 2 ragcoo kaste uu salaamo naqsado. caaisha radiallahu canha markii la weydiiyey siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tukan jiray salaatuleylka hadday tahay ramadaan iyo ramadaan kayrkoodba haddii ay tahay, waxay sheegtay 11 ragcadood in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu daa'imi jiray. 4 buu tukanayaa, falaa tasal can xusnihinna wa tuulihinna. aad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qurxinaya, mana 4ku tukado nasiino ayuu gelaya. haddana 4 kaluu tukanayaa oo aad u dheereeyey una qurxiyey, haddana wuu nasanaya. kadibna 3dii witriga ayuu tukanaya. kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu yar seexan jiray. marka caaisha waa tii weydiisay, atanaamu qabla an tuutir, intaana witriyaysa maa seexanaysa? markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi, inna caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi. indhahaygaa seexdo laakiin qalbigaygu ma seexdo. muwaطa imaamu maalik waxaa ku soo aroortay
عمر الخطاب رضي الله عنه إنه فري أبي بن كعب يتميم من الداري دتكين تكيان كوبية تورق عضودنا أي تكيان كوبية تورق عبركي تكين أيان مركا قراءة أيو نكا قاريغا أو ديرينشري وحلقيا أبا مركا قاركود بقلال آيادود إنه هالكي رعد وكو أخريو أيا الغيابة وصورك الله يقان مئينك الله يقان كسو حيقا طوالك كسو حيقا أيو أخرين شرو دميستري شري معنا نكا إمامك ودميستري شري وإليه صحابة رضوان الله عليهم مركينو لوضع ننها كده واتوكنا وحديه شرتين مركا قاركود intaanu daalo inuu qof walba ul iskan jiray macna iskan jiray markii waagu dilaa raba ayaa laga bixi jiray marka taraawida laga bixi jiray qofku aduu 12 ragcadood ka badiyana culays ma leh sababtoo rasuulku kaleey salaatu wasalaam salaatu leelki markii la weydiiyay wuxuu rasuulku yiri salaatu leeyli mathana fa idha khashi ahadukum as-subha salla rak'atan wahida توتر له ما قد صلى صلاة الليل كوا لبا ويان هدي متكين وكعب صدو إن واو كبرينا هل ركعة أتوكدو سيوتري مركا ونقطه مركا قفك محور رسولك عليه الصلاة والسلام وشاقي هدو صلاة الليل وتوكنا أيو إنو توكدو لبا وتوكدو إلى مركا الدنباء وكعب صدو إن هبيك واو كبريو مركا وتري وكسو ختمه عدد محدد مركا رسولك عليه الصلاة والسلام كمحددين تنا وفعلك رسولك عليه الصلاة والسلام ويا وأفضلك أيام بيت المامسة لكن ما تلمامسه إن لو حدده كوبي التبرع عضد أون لا فكرين أو قفك دافينا بدعو ليمي ما معناه سلف رضوان الله عليهم وحيت كدين سلف قاركود لما ترعى عيت كدين علماء انتو بدلنا سيدا سيبا قبي جيرين با وحا قبل لما ترعى وترغو أنو كجيرين إن لا تكدو سفيان الثوري ابن المبارك إمام الشافعي أصحاب الرأي حلقوري عمر بالقوري علي لبضب والقوري غير كود الصحابة كمدة يالقوري سلك في قاركود waxay tukadeen 9 iyo 30 ragcadood ay tukadeen ay ku jirto witri ku jiro ay tukadeen waa qowlkii Imam Malik oo ku tagay weeyaan waxaan ku sheegay huwa al-amr al-qadim indana reer Madiina markii la fiiriyo reer Madiina dhaqankii lagu yaqaanay wuxuu ahaa ee saxaabada ay ka dhaxleen in 39 ragcadood la tukado salafka qaarkood waxay tukadeen 40 ragcadood ku tukadeen witrigana 7 ayay ka dhigeen dhammaantoodna waa iska banaanta culays hadda ku jira yaraatee ma jiro si kastoo markaad u tukantid culays ma leh laakiin maxaa laga hadlayaa afdaliyada yaa laga hadlay afdaliyada haween 12 weeyaan culimada qaarna way jamciyeen dhaqanka salafka way jamciyeen waxay yiraahdeen haddii qiraa'ada la dheereynayo waxa sunna ah in rakacaadka la yareeyo haddii qiraa'ada la gaabinayo maxaa sunna in la badiyo rakacaadka in la badiyo ayaa sunna qiraa'ada la dheereynayana yaa loo qaadanin halkan juz yaa loo qaadanin oo halkan juz ee ku tukana qiraa'ad dheer ma macna qiraa'ad dheer ma saxaabadu markii ay 12 ragcad tukanayeen bilmiin bay akhrinayeen macna boqolaal aayadood baa laga yaabaa in halkii ragco hal juz ka badan markii qaarkood dhacay in lagu tukado haddii marka qiraa'ada la dheereynayo afdalku muxuu yahay in la soo gaabiyo rakacaadka haddii laakiin qiraa'adu ay tahay qiraa'o gaaban waxa afdal ay leeyihiin rakacaadka la badiyo waa sida ay oo ku jamcinaya aqwaashaas ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi majmuu' al-fatawa mujalladka 22 272 kadalika ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi ayaa isagana saas oo kale sheegaya oo Fathul Baariga mujalladka afraad ayuu ku sheegayaa 253 waxa uu leeyahay ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi markuu riwaayada kala duwan ee waliba Umar laga soo naqliyay ee wada ansaxay oo soo tiriyay ayaa wuxuu leeyahay wal jam'u bayna hadhihi riwaayaat mumkin باختلاف الأحوال وعلى وجه بكرة وحوين حالة كلا دوان حالة قاركودنا waxay tukadeen saxaabadu 12 xaalada qaarkoodna 3 xaalada qaarkoodna 39 xaalada qaarkoodna 40 ay tukadeen waa ka lagu jimci karaa buu leeyahay يحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطوير القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي وغيره حليه هي lagu jimci karaa
in aynu tiro badnaanta iyo tiro yaraanta ku jamcino kolba qiraa'ada la aqrinayo. haddii qiraa'ada la dheereeyo maxaa yaraanaya? rakacaadka yaraanaya. haddii qiraa'ada la khafiifiyana maxaa badanaya? rakacaadka ayaa badanaya. ibnu taymiya raxmatullahi caleyh isaguna saasoo kale ayuunbuu u dhigaya. marka qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu taraawiixdana saasoo kale uga faa'iidaysto, wakhtigiisana uu ka faa'iidaysto. waana shay aad moodid agteenna inay hadda ku dayacantay aad moodid. oo dadku salaada cishaay bay soo tukanayaan haaliban. markay soo tukadaana masaajidka waa laga baxaya. waxaa tukanayn maxay yihiin? waa dad yaro kooban weeyaan. waxaa laga yaabaa saf, laba saf inaanay gaadhaynin ayaa laga yaabaa. waxaa la rabaa masaajidadu in camirnaadaan oo la camiro. qof kastoo awoodu leh inuu masaajidka tago uu ka faa'iidaysto oo ku tukado ayaa la rabaa. qaabka loo tukanayana waa sida aynu sheegnay weeyaan. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.